adduunka waxa imtixaanka loo keenay in aakhiro layna jeclaysiiyo oo aakhiro ay noqoto meesha hunguriga bayniinaga hayo ee isku dhammuhu yaaliin ee nimco noocay tahay baa i taallo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantahay alla taqaan bay yidhaahdaan saxiixa maaha markaa dhibtu haysato dadku ilaahay ugu wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin mulxidiintii waaweynaa ka mid ahaayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay waktigii uu ilxaadka ahaa waa dhakhtar specialista dabeetana inan yaroo uu dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay markaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihiioo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaahu haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihin ilaahu haddaad jirto oo aad taayar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa anaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey baa ilaahay baryadii baa ka aqbalayo tii yaraydunbaaba saa kuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something happened waxbaa dhacay miracle baa dhacay bay dhahay mucjiza meeshan ka muuqata tii yarayd mar qurunbaaba waxeediiba iswada bedeleen markaasaan raadiyay buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray maahmaaha waxay yidhahdeen there is no atheist in the foxholes bay yidhahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadku wada yidhaahdaan buu leeyahay waa nin gaaleed mulxid ma jira buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya ghafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaanaه wa tacaala oo waxaa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wakti ina siiyey aynu ku toobad keenno oo hadday khaflada inugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si khafladda laynooga toosiyo marka waa qanqanjiidho yaroo maxay weli lagu leeya warhoy jaanis baad haysataaye jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi ku leeyahy subxaanaه wa tacaala waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay wuu idinka dhaafay laakiin waxaa looga dan leeyahay in laydin kiciyo oo aayaad badan baa ilahay leey walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi cadaabka dhow baanu dhadhansiin baa ilaahay yidhi intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun baa ilaahay leeyahy ka yarjicu bal inay ina dib u soo laabtaan kam yar baa la dhadhansiinayaa baa ilaahay leeyahy dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa intaa kadib waxay geysteen dadku baa bad iyo berriba fasahaadiyey bad iyo berriba waxaa fasahaadiya bini aadamka wixiisa maanta maxaa ay ka warramayaan environmental problem climatical change environmentkii baa isbedelay climatekii baa isbedelay dabeetana cilmi baadhistoodii waxay keentay war meesha innagaa khalkhalinay bay leeyihin waxaanaynu hawo sii daynay waxaanaynu samaynay waxaanaynu qodnay waxaan bini aadamku isagaa fasahaadiya bay leeyihin marka fi lbari waalbaxri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy waxaan sidaa u yeelay liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun cumuuman waxay culammadu yidhaahdaan almu'akhada fi dunya hiya alistihnaa bay yidhaahdaan gaalka in dunida lagu abaalmariyo wixii dambaababaa la dabargooyaa waa istihnaaga maaha qaacidada bay yidhaahdaan qaacidadu waa in dadka loo kaadiyey intay geeridooda wakhtigii dhimashadooda ka gaadhayso ilaahayna waa xaliim waana sabuur
وأنا عفو وأنا غفور وأنا الرحمن الرحيم فرصة سوبحيي بل إن يدبوا توبت كينا ويهدي قفك حنب لقبطه أدونك داعي لما تشوكتين ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة إلهي dadku markay dambaabaan ba haddii aan qabtaba ilaahay leeyahay cidiba meesha kuma hadheen walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma faida jaa ajaluhum la yastakhiruna saacatan wala yastaqdimuun warabbuka alghafuru dhu rahma ilaahay waa ku dambi dhaaf badan ونحرس صاحبه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا waxay kasbadeen haddii ilaahay cadaabka ugu soo dedejiyo dee meesha cidi kuma hadheen baa la tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu u yeelay mawcid kale ballan kalaa loo qabtay waan cidina dhaafaynin walow yu'aakhidu allahu annaasa bima kasabuu ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا آيات كقرآن كثيرة بدل ليكوا كلا إنه كتجنا يبوحي تلماميا أصل كأدونك إنه يهي إن أنا يهين ماشي دتك لجو حسابني ماشي دتك لجو حسابني أنا يتهاي محي آخره halka kana dad badan oo dambiye sameynayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala chance wali siin doono imtixaanaadka imanayaan inay yihiin la'allahum yatadarra'un walaqad arsalna ila min qablik faakhadnahum bilba'sa'i wad-dharra' la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي وحلي الرسل أيانو دتك وصادر دتك وحن قبرنا يبا إلهي البأس وضراء تقال يقاتشو يدبا كل عضي محل قبطي لعلهم يتضرعون بل إني الله وصار نغضان ويصلوا اللقان ما يسدعين با إلهي لي وي سي قلوبتو دا سي أدكاتي وشيطان با وحسي قرحيي مركي أي إلابين با إلهي لي وحي أنو كوانينيني أيانو البابة الدنيا دورنا با وفروني لي آخرها اللي دي كوين هذا با اسكبر واغيستا مركي أي حمها كسو نقوم وأيان با إلهي لي فتحنا عليهم أبواب كل شيء البابة دورنا با نوفر كوا مؤمنين تا إلهي محوليه بركات من السماء والأرض ما نوفر خير الدنيا سمدي عرك يدل كما خير كودا نوفر رأي لهي كوا مؤمنين أما كوا كان أبواب كل شيء بالليل الباب الله بلغ إذن كوا حد دون تانك قاطع ما يسمريها ما يستلا ما يستايو فإذا فرحوا بما أوتوا بالليل مركا كبر كجاردو يوحي لسيه كبر دافان أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيانو قبلنا بالليل سواب كو يقوستي أهلا مركا عقابكو أسل كيسو حويا آخره هي حسابته أدونكو حسنات كيسية سيئات كيسة والله سكوي تحامية وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي وحك الله تلمامية ضدك بر وان أكادين إياه سيدن بقضاء ما يسترتان بإلهي كاتسقنا أن أكاديي ما هبا إلهي لي نمعان سينا يي بوسكود النارود بها يا بحسنيان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون كوا قالوا بيا أمالين با إلهي لي إني نقد ديرين إياه إني نقد بحسن كريان إنهم لا يعجزون جملة اسمية مع أدوات التوكيد مرنا ما عكس قالين كلام با إلهي لي لكن وان سكدين يا با إلهي لي سي دم بيقود أولا ما يستران
markay dembigooda dhammaystirtaanna aakhira lagu qaadaya qaarna ilaahay wuxuu leeyahay xoolahan iyo carruurtan iyo waxaana siiyey iyaga inaan ku cadaabaa baan ugu talagalay iyagaaba cadaab ugu filan dadka inta xoolaha badan lee ku mashquusha marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhibba badan yihiin ogow horta ninka xoolaha le intaad cuntuunbuu cunaa kaama badsado caloolunbuu wataa caloolla intay qaaddo waa la yaqaanaa marana intaad xidhataa buu xidhaa hurdana waxaa laga yaabaa inaad adugu kaga fiicantay laakiin wuu kaa hawl badan yahay waxay yidhahdaan sharikaadka waaweyn kuwa leh CEO-yada iyo dadkan xukumiya waxaasi 7 subaxnimo iyagu shaqada soo galaan 12 habeenimo meelahana way ka baxaan laakiin shaqaaluhu 8 saacadood buu shaqeeyaayo way iska baxaan isagu dhowr shift baa isu bedelo u joogaa ilaahay wuxuu leeyahay falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يكو عجب قليل نبا إلهي إلهي حولها يا عرورتي يا وحناسي وحابا ربابا إلهي إلهي إن يجاكو عذابه وحكرين أن يجاكو عذابه بربا نرش أدون وإن افتدوا سناكو بحضا يجاكو قالا آخر قال لما مركا يقول يمادنا إن عذابك ورابيه وأدعى إلهي وكورما قار عذاب استئسال وسمي قلت لك قوي ذنوب تودا درادو فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن علماء وحيد هذا عذابك كامل كاهي إلهي سبحانه وتعالى أنبيادي هوري وقتي قودي بوشري قارهان بيد هذان انتي جهادكو بلا مي نبي موسى بيد هذان بالله دم بسو قاري عهدي قيسي نبي موسى فرعون يكو حدا تماكي عذاب استئسال كاللغو سمية لمريي iyagun baa la odhan jiray xaggaa uga baxa gaalada anaa ku filan ilaahay buu leeyahay idinku xaggaa uga baxa laakiin isla waqtigaas isla nebi muuse ayaa la waajibiyey jihaadka iyo dadkan iyaga la isku itixaamo oo waatii la yidhi ardi almuqadasa adigu furo markii ay furan waayeen natiiha ay galeen kadibna yuushac ibnu nuun uu qabsaday yuushac ibnu nuun uu ku jihaatamo uu furtay bayt almaqdis wixii ka dambeeyey bay yidhaahdaan cadaab istisaalkaasi inta badan ma soo degee baabuljihaad baa furmay oo waxa la yidhi idinkaaba la isku keena itixaamaya saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leey walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu innahum laa yucjizuun waaciduu lahum ma istatactum min quwa waxaan ku soo koobayaa ibtilaaga iyo imtixaanka dunida ka dhacaa macnayaal badan baa qur-aanku tilmaamaya inta aan tilmaamay waa tusaalayaashii waxay sheegayaan asbaabaha ibtilaagu u soo dego inay waxaasoo dhantay inaanay ciqaaboo qura ahayn dadku inta badan waryow ninkaa hebel nin wanaagsan buu ahaaye meel ciqaabtu beledu kaga dhacday garan maaya bay yidhahdaan kaanamaa qof walba waxaa istaawun ay tahay balaayo gaaro ku soo degtay laakiin waxaynu tilmaamaynaa wax badan oo kala nooca ayuu imtixaanku u yimaadaa dad quroo imtixaan wada qabsadaa buu qofba si ku yahay qaar ay saalixiin yihiin oo uu si gaara ku yahay qaar ay taalixiin yihiin oo uu ciqaab ku yahay qaar ay haafiliin yihiin oo uu tanbiih ku yahay dad quroo wada jooga ayaa dhici kara imtixaan mar qura dhacay inuu nawciyaadkaasoo dhan tilmaamayo waxaan ku soo gebagabaynayaa markaa haddii imtixaan yimaado بكل الأحوال وحواجب إن الصبره وحواجب إن الله على عال تشكل السمينين وحواجب حسن التوكل إن يدتك الله يمادان إلهي كلسونك وقبان وحواجب إن يدتك إلهي والنقضان اللجوء إليه والاستغفار والاستعانة به إلهي إن يدبق الله أبتان دنبي قودين كالطوبة كينان ألك كالما ويديستان baryadiisa badiyaan qur-aanka dib ugu noqdaan nebiga salligiisa badiyaan
toosnida badiyaan waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa imtixaan oo dhan isku soo dar waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii cabsida alla ku badato albaaba alla u furaa imtixaanka waa la marin laakiin muxuu helayaa way out meeluu ka baxo albaaba alla u furaa ciddii kalena dee way dayowdaa uun waa ninkii wallaaya yidhaahdeen awr buu intuu isku xidhiidhiyey ayuu awrkii garhwadeenka u ahaa iyo kii dambu isku xidhay markaasuu yidhi meeraysta dee awrtii hadduu dabada isugu xidho meelay u socdaan male dadka barh baa tii haa galoo meeraysiga ku jira laakiin ciddii ilaahay xasuusatee u noqota mahmaa kaanat ilmasaa'ib ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja albaaba alla u fura ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii alla ka cabsata ilaahay arrinkuu u fudaydiyaa taladaa la waafajiyaa meesha ay wax ka hagaagayaan buu arkaa xalkaa u soo dhowaada waxbuu gartaa ilaahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatih ciddii alle ka cabsata waxaa ku dhacay oo dhan ilaahay dembi dhaaf buu uga dhigaa wayucdim lahu ajra ajarkana waa u weyneeyaa oo waa badhaadhaa waxaan leenahay markaa masaa'ibtu hadday dhacdo ilaahay wuxuu leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwa imtixaanku qabsado musiiba qabsato ee yidhaahdaba ilaahay leeyay inna lilah awalba ilaahay baa na lahaa annaga iyo adduunka iyo waxaan oo dhan rabbaa noo talinayo nala lahaa wainaa ilayhi raajicuun isagun baananu noqonaynaa rabbaana wada leh adduun oo dhan iyo annagaba isagaananu u laabmaynaa kuwaas baa ilaahay yidhi ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma kuwa korkooda waxaa ahaaday ilaahay salligii iyo naxariistii iyo wanaaggii oo dhan bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduun baa ilaahay yidhi waana kuwa hanuunaya soomaaliya marka waxaynu leenahay imtixaan badan bay soo martay caalamulislaami oo dhanna imtixaan badan buu ku jiraa kullu haadihi اlimtixaanaat taagani waa ibtilaa'aadka aan ka soo warramaynay waa wax dembi lagu maydhi wax dad haafiliina lagu toosin wax kuwa dembaabay dib loogu celin wax qaar saalixiin oo ku dhex jiro dadka dunuubtooda haleeshe kor loogu qaadi wax lagu rabayn wax qaado loogu soo saari wada shar maaha say dadku u fahmayaan wada shar maaha ee barh badan oo ka mid ah ayaa liislaaxina u dhacaya idan ilaahay aan ku kalsoonaanno tala saaranno kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegayna dib ugu noqonno haddaynu liibaan aakhiro iyo mid adduunyaba doonayno وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين